السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. wiil dhalinyaro ah oo daroogiista ah macsadana aad u sameyn jiray faaxsho walban la imaan jiray xataa gaari heer uu garaacay labadiisa waalid gacan uu qaaday mar walbana uu garaaci jiray ilaa ay la noolaan waayeen. guriga ay deganaayeen barxadda uu lahaa ayay qol uga sameeyeen si ay isaga fogeeyaan. qolkaas ayuu isaga jiri jiray, daroogadiisana ku isticmaali jiray. 4 wiil oo saalixiin ah ayaa waxay ku ballameen inay wiilka u tagaan oo u naseexeeyaan inuu Ilaahay waxaas ka saaro jalla jalaaluhu. way u imaadeen isaga oo cabsan sarqaana ah, way la hadleen laakiin ma uusan dareemeynin. xogaha ayay u sugeen inta uu ka soo miirsanayo. markii in yar uu soo miirsaday ayay u bilaabeen inay waaninayaan kuna dhahayaan Ilaahay ka cabso subxaanahu wa tacaala. waxay uga sheekeeyeen naxariista alle, waxay uga sheekeeyeen jannada iyo naarta. waa uu ooyey, wuxuuna ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay hadalkan oo kale weligii ma aana maqlin. waxaan doonayaa in aanan idinka harin idinka oo idinla jiro. 4 wiil oo saalixiinta waxay u socdeen safar magaalada banaankeeda ah, waana ay kaxeeyeen. waxay tageen meel masaajida. masaajidkii markay tageen ayuu wiilka toobadiisa iclaamiyey, laakiin waxaa aad u dhibaysay jirka daroogada ku jirtay. daroogadaas ayuu aad ula xanuunsanayay muddo. xataa xilli habeen waa uu ku qeyliyey, wuxuu ku yidhi ixirxira, waxaan ka cabsanaa inaan baxo oo daroogo aan raadsado. waxay dheheen nakeen isbitaalkaan ku geyne, laakiin wuu ku adkaysaday inay xiraan ilaa markii dambe ay xireen. xarig ayayna ku wareejiyeen. xarigga markii lagu xiray xoogaha markuu joogay xarigga ayuu iska furay, laakiin wuu iska ooyey. maxaa yeelay daroogadan wuu u baahnaa, jirkiisaa rabay, asagana ma uusan u baahneen. wiilkaas dhallinyarada ah muddo ayuu la xanuunsanaa daroogadaas, xataa heer uu la ooyay ayuu gaari jiray. laakiin alla subxaana wa tacaala markuu arkay ninkan toobadiisa inay ka dhabtahay waa uga raaxayay arrintaas. dhakhtar ayay u geeyeen. dhakhtarkii markuu u baaro wuxuu yidhi macquul ma ahan ninkaa inuu daroogo isticmaali jiray weligiis. ninkan waa uu toobad keena, ilaahayna dadka toobad keena waa u dhaafaa. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ربك كوا عملوا السوء حمانت عمل فري بجهالة أيوة كجاهلة انت كبعدنا كتوبت كانوا كسر نقض حمانتاس عمل كودنا هجاجي ربك توبتاس كبعد والله ودافيا ونحريسنا يو. wiilka dhalinyarada 3 bilood ayuu ka maqnaa waalidiintiisa, ma aysan tabin maxaa yeelay way ka raaxaysteen. waxay u maleeyeen in la xiray mise xadiida uu ku dhintay. 3 bilood ka bacdi ayuu go'aansaday inuu soo baxo. gurigii waalidiintiisa ayuu yimid. hooyadii ayaana ka furtay. aad ayuu ugu farxday markay aragtay wiilkeedii oo qurux soo siyaadsaday. hooyadiis ayuu dhunkaday, wuxuuna ku yidhi hooyo isaamax oo iska kay cafi. hooyadii madax ayuu ka dhunkaday, hab ayuu siiyey, cafisna waa uu ka dalbaday, way cafisay. xoogaa ka bacdi ayuu ku yidhi hooyo waxaan doonayaa cunto adiga gacantaada ku samaysid. hooyadii way ku faraxday, wayna ka aqbashay. salaad ayuu galay, waa u takbiirsaday, wuu rukuucay, wuu sujuuday. sujuudda ayuu dheereeyey. hooyadiin raashinka ay la kor taagan tahay. wiilkii sujuuddii ayuu sii dheereeyey, waa uu ka bixi waayey sujuuddii ayuu aad ugu jiray ilaa uu ka geeriyooday. hooyadii siday u sugaysay waxay ogaatay wiilkeeda in uu geeriyooday isaga u sujuudsan. waxaa isku soo baxay deriskii, way yimaadeen. waxay arkeen wiilkii dhallinyarada ahaa oo xumaanta fisqiga meeshii ugu xumeed ka gaaray, waalidkiisa u gacan qaadi jiray, isaga oo maanta geeriyooday isaga oo sujuudsan. markii la fatashay jeebkiisii waxaa ka soo baxday warqad dardaaran ah. warqadda dardaaranka ah waxaa ku qoran haddaan dhinto karfanta hooyaday ha ii tosho, aabbahayna ha i duugo, meydkaygana ha qaadaan wiilashii dhallinyarada ah ee xumaantii ugu ogaan jiray si ayagana ay u toobad keenaan, xumaantaasna ay uga baxaan. walaal haddaa qisadan ka heshay ay ku cajab gelisay, muuqaalka like saar, subscribe dheh, ku xirnaa mar walba Afmaal Studio si aa u heshay qisooyin yaab leh. mahadsanid.